وعلينا هذه أدبا ما سنتهين سودوينتنا شرفت له ما أنت دقمة على نقول سودويسين أنا وفدقي أوركا توفيق أدينكو إلى ساعات أسقرها تاجنا وإن كجمع هاد علينا سودوينت ما أنت نقول سميسين دقمة على هذا أنت صدقان وجود به أوركا توفيق وحكم دي هاي أور سياسة يدا قرن ديوان قشن أور سياسة يدا ما أنت وتاجن إنه دلك وجان كيس أو وحكا قبته من دقمة لقى صوب بلاوه إلى هير قرن وحكا قبته تاجن يهاي مركل بعد مركل وحنو ما علينا دولة فدرالكا سوماليا وما أنت جارسين يسودن كدور الشقة في علا تاسو ماشي كساري دونتا إن شاء الله تعالى ninkii xilka doonayay boorsada ku jiray boorsada watay ninka asagoo boorso watuu yimid maalintii uu xilka rabuu noo imaan jiray boorsadaas lacagta uu ku bixiyana anagu naga dhalaalin jira laakiin insha Allah taala taas meesha way ka baxday waa doorasho qof iyo cod ah maanta waxay haystaan ree cadaado chance iyo fursad ah cidii ay rabaan in ay soo saartaan cidda kaliya maanta ree cadaado matali karta riyodoodii ka dhawayn kartaan insha Allah taala ururka tawfiiq way dhamaanteen soo ma diyaarsan inaan codkiisina ururka tawfiiq dhamaanteen maxaan ahay ree tawfiiq manaha urur siyaasadeedka tawfiiq insha Allah taala waa ururkii rumayn lahaa riyada ree cadaado iyo deegaan walba oo deegaanada Soomaalida kamid ah kuna rumayn lahaa qofkii ay rabeen oo munaasabka u ahaa oo deegaankooda ka soo jeeday markii doorasho qof iyo cod la aado waxa ogtihiin qolo walba waxay dooranaysaa qofka ay rabto inuu maamulo dadkan iyo deegaankan waxa munaasab u ah oo mudan inay maamulaan marka koowaad dadkii ayaga ahaa marka labaad dad amaano leh oo culummo ah oo dadka iyo deegaanka wax ka bedeli kara soo sidaas ma ahan dadkaasi waa dadka laga bilaabo qofka ugu hooseeya ee degmo u sharaxan ilaa madaxweynaha ugu sareeya ururka tawfiiq oo ay yihiin dad culummo ah dhamaanteen maxaan nahay ree tawfiiq soo mareen dhamaanteen waxaan nahay ree tawfiiq ayaan nahay insha Allah taala ururka tawfiiq wuxuu ka dhawayn doonaa mabdiisa ugu weyn ee koowaad ee ah in ummadan loo dooro qof leh amaano leh diin leh lagu aamino dadka diintooda iyo dalkooda lagu aamino xisbiga tawfiiq insha Allah taala hadii aad codkiina siisaan maanta urur siyaasadeed weeye xisbi aad ka dhigtaan kuraasta cadaadata alla iyo deegaanada u dhow ay ku soo baxdo ururka tawfiiq ma idin imaan doono nin boorso ku jira maalintii aad doorateen ay ugu dambayso ma idin imaan doono insha Allah taala waxaad heli doontaan insha Allah taala dad aad ku aamintaan dalkiina iyo diintiina iyo horumarkiina aad ku aamini doontaan ayaa ururka tawfiiq heli doontaan insha Allah taala ururka tawfiiq wuxuu ka duulayaa mabdiisa koowaad uu yahay ummadan waxa lagu aaminaa qof diin leh dadkan amaanadooda waxa qaadi karo qof diin leh diintooda waxa hormarin karo qof diin leh dhaqaalahooda waxa hormarin karo qof diin leh taas ay mabdeena ugu weyn uu yahay waa mid maanta keentay inay hogaaminayaan culimadii ugu waaweynay Soomaaliya oo ururkaba gudoomiye uu yahay taasa insha Allah taala min degmo iyo tuulada aan ka dhawayn doona maadaama qorax la taagan yahay waxa ku soo gabagabeynaya mahad celinteena aan mahad celinayna ree cadaado ballanqaadka ay maanta naga ballan qaadeen oo ay noo muujiyeen intaas ay qoraxda noo taagnaayeen hawlahoodii iyo danahoodii iyo arrimahoodii dhammaan ay noo soo baajiyeen maalintii la tago codka ree cadaado yaa iska leh codka ree cadaado waa maasantiin hadda waxa ku soo dhaweyn